wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo ay weeliyaan safiirka Soomaaliya oo u fadhiya Masar ahna wakiilka joogtada ee Jaamacadda Carabta Mudane Cabdiqani Maxamed Wacays iyo diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dawladaha Carabta oo ka dhacay Qaahira. kalfadhiga wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ayaa ahaa kii 149aad waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dawladda Soomaaliya u gudbisay ururka Jaamacadda Carabta kuna saabsan heshiiska baadilka ah ee dekedda Berbera si dawladaha Carabta uga qaataan mowqif midaysan. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirka ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. intaa kadibna golaha wasiirada ee Jaamacadda Carabta ayaa soo saaray baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in madaxbanaanida, midnimada iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dawladda federaalka ay mas'uul ka tahay. kadib markii uu shirka dhamaaday ayaa waxaan waraystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Soomaaliya ee Masar ahna wakiilka joogtada ee Jaamacadda Carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta. ajendayaasha laga hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen 9 ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka Soomaaliya, waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka Suudaan, waxaa ka mid ahaa Yemen iyo dalal badan. kulanka hadda dhacay waxaa noogu gaar ahaa annaga oo rabnay inaanu Jaamacadda Carabtu ay xaqiijiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin sharikaad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dawladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay uga khudbeeyay u dhigay muxuu ahay arintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadka ay saameyn karto waana la qaatay waa laga dooday. laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen. mid ah in dawladaha Carabeed iyo Jaamacadda Carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madaxbanaanida, siyaadada, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranimada waa qodob laba taabtaan ah. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan degmaha ka qaadatay heshiiska saddex geesoodka ee DP World, Ethiopia iyo Soomaaliland waxaana dawladda sheegtay inuusan sax ahayn heshiisyada aan soo marin hay'adaha dastuuriga ee dawladda Soomaaliya. go'aankan ay qaadatay dawladda Soomaaliya ayaa waxaa bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dawladda uga go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Wali Xasan Cabdi Mawlid Muha, warbaahinta qaranka, xarunta Jaamacadda Carabta Qaahira.